السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتي وبلاشن يمنا ويدي له kusoo dhawaada channelka daawanaysiina waa Yumna Beauty. maanta waxaa sameysanaynaa cream yar oo dabiici ah maasha Allah. halkaas xabo waxaa ka sameysanaynaa cucumber ama qajaarka ah waa soo kareysanaysaa ama hadii kale waxaa sameyn kartaa waa shiidan kartaa blender soo qaadanaysaa waa shiidan kartaa. haddana asxaabta waa soo miirinaynaa inta ayaan ku soo miirinaynaa maasha Allah. biyaha ayaan kaga baahanahay, biyahaas ayaan rabnaa inaan cream ka sameysano. haddana asxaabta waxaa ku soo darsanaynaa hal qaado oo waranga ama hadii kale si aad u taqaaniin cornflour ayaan ku soo darsanaynaa. cornflour waxa way kan aan ku darsano xalwada aan ku darsano caadiga aan isticmaalno way ku kala maahan. si fiican ayaa isku dhex gelinaysaa alaabta. waxay aad iyo aad ugu sii fiican tahay alaabtan asxaabta oo ah oil face-ka aad ay u anfacaysaa. hadda waxa way panka ayaan dabka soo saaranay, wax yar ayaa ku leesanayna dabka ayaa aad u gaabinayna, wax yar ayaa kaliyaysaa dabkaagi. waranga ayaa ku jirto, warangada waxaa rabnaa inay soo yar adkayso maanta creamkayni maasha Allah. asxaabta san ayay nooga soo baxday, waa cream aad iyo aad ku anfici doono. hadda waxaa ku soo darsanaynaa wax yar oo aloe vera, hadaa u baahan tahay ku darsan kartaa, hadii kale waa ka dhaafi kartaa saa jeceshahay. waa asxaabta wax yar ayaa ku soo darsanay. hadda si fiican ayaa isku dhex gelinaynaa, waa isku dhex rabnaa inay si fiican isku dhex gasho aloe vera iyo creamki aan soo sameysanay. si fiican isku dhex gelinaynaa asxaabta. alaabtan maasha Allah waa lagama sheekeyn karo, hala soo tijaabiyo insha Allah. dadka ka cabanaya oil face-ka insha Allah asxaabta idinkan waxa way dhagiina subscribe, like iyo share insha Allah lagu soo dadaalo wax ka sii badan insha Allah. asxaabta waa idin soo gelin doona aad iyo anfici doona.